waxaan dhageystay nin wadaadahoo beerka xanuun kaga dhacay oo lagu yiri bil baad noolaanaysaa bil haddaad ugu badan tahay bil baad noolaanaysaa baa lagu yiri marka wuxuu yiri qol baan galay oo aan ku gooni noqday cuntadii waxaan iska daabaa lagu yiri waad ku dhimanaysaa dabeetana waxaan malab iyo maa u samsam iyo waxyaabahaasaan qolka dhigtay buuri marka wuxuu sheegay inuu ilaahay baryey ilaahay sidii aan qof aan la hadlayo kale ayaan ula hadlay buuri ilaahayow dadka ayaan qur-aanka ku tufi jiray oon u ducayn jiray waanad iga aqbali jirtay ilaahow addoonkaagan hebel isagaa isa sheegaya maanta isagaa u baahan inaad shaafido ilaahay waxaan ku weydiisanaya inaad shaafido xanuunkaan aad iga dulqaado baryo dhaboo qalbiga ka soo gooday buu ilaahay baryay dhakhtar baa la geeyey yidhi beer baan u beeri karaa dhakhtarkii markii la geeyey baadhitaan baa lagu sameeyey waxaa lagu yihi waxaa kuugu jira beer ilmo yar qof yar oo bil ka hor lagu geliyey man zaraca laka alkabid yaa kuu beeray beerkaas beer yaroo biyaha tufaya oo beer dhalinyaraa ayaa kugu jira baa la yidhi haddaba ninkii beerkiisu dhammaade la yidhi waxaa ninkii dhakhtarkii u dambeeyey wuxuu ku yihi waddankan uu joogo haddaad waddankaaga ku noqonayso si lagugu aaso haddaad dardaarmayso haddii dayn lagu leed iska bixinayso hawshaada qabsa buu ku yihi ninkii baa lagu yihi beer qof yar oo bil ka hor lagu beeray baa kugu jira man zaraca laka alkabid yaa kuu beeray qaala zaracahu liya rabu lcaalamiin rabu lcaalamiin baa ii beeray baan idhi maxayd kala u beertay de lama qalin waxba laguma samayn lakin de waa inaad aaminsantay taas haddaad aaminsantay ka waran beerkaagu inaanu hagaagiba karin ilaa uu dhakhtar ka shaqeeyo oo kalsoonida dhakhtarka ku qabta iyo tacalluqaaga qalbigaagu ku xidhanya uu ka weyay kaad ilaahay ku qabto aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu الsuu